aan ku kabto oo qalbiyan aan inta la seexday ilaa war aniga dhibkaana i gaaray ma haystaba ifka ima joogo waa aniga iyo maskaxdan yare isaaran isla waalanahay xagee gashaa intee ka baxdaa waa safar gabadha markuu aad goosateen Hargeysa dhaadeen sadku aad Hargeysa waaba taariikhe dad xariifiinaan banahay eelgaab siiso waan ka kornay siiso wax ku tagaa ilaa iyo buuhood ilaa Hargeysaan ka dhacan ma dadkaasaan banahay aan ku dhahay geesinimadaas waxaan ogahay waqtigan baxataa ogahay laakiin adi sababtaad u baxday waa taqaanaa aniga waa ogahay gabadha ma oga gabadha waa duufsaday horta maskiinta anaaba horta duufsaday laakiin iyada saasay tahay waxay ahayd gabar hooyadeed iyo aabaheed ay garoowa jireen eedadeed la nool oo iyada naftigeeda iska rabtay inaan nolol ay samaysato wayna samaysato runtii markay soo baxday ilaahay nolosheeda wuu u barakay qasadka marka Hargeysa aad u aadaysid muxuu ahaa marka waa iska socdaa inaan ka tago dadkan iyo wajiyadan xunxun ee maalin walba aan kaliya isla sheekeysanahay inaan meelan leega aqoon tago waxaan kala kulmaay aan kala kulmo waaba wax uun maskaxdayda ay siinaysa hadaa inta ka tagto waa badbaadi ee laguma yaqaano kow waxaa kow igu sawiran ka taqaano male cid naga horeysa male ilaa darawalkiyo markii dambana meelay insha Allah laakiin oo fahmay ina gabdho goosatiin qasidan u sheegteen inaad iska socotaan maya ina iska socono qisadayda horta runtii ii qaaska waa mid hadda dhow uun aan go'aankeeda gaaray inaan banaanka soo dhigo maadaama aan muddo la xanuunsanaay aan helay counseling oon helay nolol maaragtay ka duwantii hore Hargeysa tagtay marka maxaad kala kulantay Hargeysa waxaan kala kulmay waxaan laga sheekeyn karin oo aad u wanaagsan jecel dad sharaf leh dad isu dhaweeyo macnaha maba ka hadli karo dadka aan la kulmay xataa dad ma ahan ilaa hadda ma sha Allah dad asxaaba ku yeeshay laakiin markii horan baxaynay cidna ka baaqon geedahaasi annaga iyo wixii hadii bahalna cunay iyo 10kii shalay soo xoogto 10 ka horeyso xataa hadii ay cunaan ima sawirnay ilaa goormaad ku nooleed marka Hargeysa adi muddo kooban oo adiga 6 bil amal ah Djibouti gabdhaan ku baranay gabdhihiin Djibouti u sii raacnay waa another adventure kale gabdhihii aan ka bartay Hargeysa aan Djibouti u raacay Djibouti haddana tagi waa anoo yar yaa waa 18 xataa marka sababta aad saafi uga cararaysa xamar aad Hargeysa u tagtay oo idin Djibouti u socoto waa dhibaatadii ku gaartay habeenkaas waxa i gaaray shock oo aan qof waa jira wax xamili kara u maleynaa adduunyada laakiin aniga waxay igu noqotay la xamili karo wax sabaryar oo dhibkaas aqligeygana aad u yahay marka waxaad aamintay noloshaadii oo dhan waa burburtay wax aad ku haysata adduunka inaysan jirin madaxayga gashay mayd socdaa tahay marka waa iska socdaa ilaa inteen socday meeqadal Djibouti tagtay maxaa xigay waxaa xigay in waalidkay ay waashaan yani raadinteyda oo marba meel loo saaro ayagana la yiraaha mar Kismaayay jirtaa mar Jowharay jirtaa mar intaan nin ku haystaa waxaas loogu sheekay la yiraah gabadhi waxa lagu guursaday xataa meel hebelay yani waxa la yiraah hal booli maxad maqan haan ebre tii waalidkay ku dhacday marka waxa dhacday xataa dad in laga soo daba diro la soo raadiyo muddo markaan 3 bil kale Djibouti joogay ilaahay habeenada kamid igu soo riday inaan dib u noqdo haddana حمر كنا سيديان حمر هدان كسو لابد لكن دبدي دولك هدان حمر من ايين هو يدين waxay tirtii hadayba ku wareertay Soomaaliya ana Sacuudiga joogay bal aniga markaan gacanteyda la soo galay Sacuudiga lagu diray sidii hadana Sacuudiga lagu diray Sacuudiga hadana hooyi aniga waxaan noqonay kulaal iyo dooli توم انجري waxaan noqday qof aan la heshiin karin dagaal badan xanaaq badan wax kastana xumaan u fasirato yani mental ahaan aniga markaas jiranahay laakiin no bari adduunka fahmaayo ma jiro hatta hooyada ku fahmayso wala hooyada way soo celisatay ay tiritan u fiyoba waxaan noqday yani reerka xaqiisi black list ay dhahan black sheep qofta inta lay bursadaa waxaanan ahaynno gadaasheeda laga dhaxaa warkaas waa markaan maaragtay isdhufanaysa maskaxda aan leeyahay war adigi maba lagu ogamiyaa inaan saan tahay markaas kelmadan lagu quura taas waxay isku noqonay
Tom and Jerry adigana cid aad u sheegtay Ma qisadaada jirto. oo familkaaga ma ah jirto cid aad ku aamini karto wax kugu maba jiro adduunka qof aan maanta aan saan public uga sheegayo oo Soomaaliya oo dhan ay maanta u dhaxayso ayaa loo shalay qof waa ku aamini waa kaligeeya marba meel la hurda dhibaatada la hurda oo dusha ku wata dalka burbur markaa dalkii intuuna burburinaan ka soo baxay familkaygu haddana Afrika u badnaay Nairobi haddana dib leegugu soo diray Kenyan imid Kenyan haddana Italy ka soo imaaday ka soo aaday Italy way marka haddana ninkiinan ku arko waji ka waji gabar la socdaa la laafiyoona waa iga hor yimid haddii aad horey uga mid ahayd dadka ku xiran ee rukuntay bartan waad ku mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhawow gacmo furan waxaan mar walba u baahannahay taageeradaada iyo sidoo kale ra'yigaaga inaad inoo sheegto wixii talo ama tusaale ah ee ku saabsan barnaamijyada Ha Noolaato mahadsanid saafi soo dhawow waxay noo maraysay markaa adiga oo la kulmay ninkii dhibaatada kuu geystay isaga naftigiisa ee lugaynaya talyaaniga isku aragteen ee la socdo gabar aan guri la seexanay markaas wada jiifnay xaafad marka niyadda waxaad gashatay gabadhan ugu waramay wuxuu ku geystay aniga weli xishood waxaan xambaarsanahay ani iyo qaas oo aan dadka uun ka baqaayo oo yacni nafsiyan maadaama wax ii gaareen nafteydii waxay ii sheegtay markaas in ninkan already haddana Italy iga daba yimid aan micnaha dadkiina way ku ogaanayaan shalay waxaan ka cararaayay xamar ugu soo carartay Soomaaliya yaan laga ogaan xamar daraadiis waaye Italy markaan ku arkay waxay noqotay inaan haddana ku fikiro ma meeshaan uu kaaga daba yimid waa lagu ogyahay haddana marka uu gabadha la socdo ani wax uun baan qarina dhibtaan inay qof walba ogaato ama qof la ogaato intaasan ka carara marka gabadha uu la socday ee kula degan guriga wada seexanayna waa wada nooleeyeen guriga wada seexanayna isagu inaad talyaaniga joogto ma ogaa maba is oginba maalintii oo habeenkaas yani taariikhda ay ugu dhigeen ilaahay indhahayga ma tusin mar kale waana ka duceysan jiray qalbiga gudihiisaan dhihi jiray ilaahu kuwaas hay tusin ilaahu ceebteeda astur anigiiyaa waxaa u haystaa inaan ceebaysanahay ceebtaba ayaga uma haysto inay i gaarsiiyeen anaaba waxaan ahay qof ceebaysan ilaahu i astur ilaahu i qari ilaahu hay tusin marka inaad dambiilo tahayna waxaa u sababa dhaqankii ayaa ku tusay inaad aniga waxa dambiile iga dhigay waa wixii laygu koriyey oo maskaxda layga geliyay yaraanteydii marka mar walba waxaa lagu sheegaa inaad gabar tahay xishootid waxyaalaha qaar aadan ka hadlin wiilasha lama dhaho wiilasha waa boqortooyo guriga ayagaa dharka loo dhaqaa ayagaa cuntada loo kariyaa ayagaa maaragtay gabdhaha islaameed nabadgeliya oo ahaa gabarha soo xoogin iyo gabarha dhuminin iyo ayaga lamaba dhaho ayaga waa kinga hadday dhib geystaanna waaba la difaacaasa u malaynaa laakiin aniga waxaan ku koray ayagu ceebta maba karto hadda yaa ceebaysan anigii adiga isweydiine ayaan loo ma ana ceebaysan mise 5 ruux iyo 4 ruux qof ay ku goobteen waaba lay dafaye maxay tahay ceebtan kaloon ka dhuumanayo ilaa Italy aan saarsanahay ilaa iyo intaan saarsanaa ilaa maaragtay aan dhakhtar la kulmo oo talyaaniga markaan ninkii markaan arkay waxaa igu dhacday inaan haddana ka cararoon Torino cararo Roman joogay maya astaghfirullah Napoli isagana Napoli joogay markaas isaga uu ka tagi doonaa markii dambe Napoli laakiin aniga Napoli aan uga cararay Torino nu cararay Torino meel soorada waa taqaanaa maho meeshaasaan intaan seexday aan naagta soorada kamid ah shaqo ii heshay shaqadaas anoo ku jira cudurka maskaxda igu dhex qabtay yacni barkee isbitaalan kasoo toosay مجدا adoo isbitaal kasoo toosan saartay isbitaalan kasoo toosay marka lagu geenay maad ogeyn may qaraabadeydii dad adi markaas ii dhow ehelada iyo yaqaaniin ameeshii Torino isbitaalka igu imaaday isbitaalka maskaxda ahaa muddana ku jiray markii dambana Roma lay soo bedelay isbitaal Roman galay markaas waa markaa ehel iyo qaraabe iyo aanba waayoon kali isbitaalkii ku noqday dhaqaatiirtan uga sheekaysa wax ku gaaray والله dhaqaatiirtan hadda la noolahay ogama sheekeen laakiin gabar oo psychology saaxiib la ahay oo caruurteeda markay yaraayeen aan bartay kuwa talyaaniga maya kuwa talyaaniga wax oo aan qisadeyda ma sheegin laakiin waa la iga daaweeyay markee waa reestay
macnaha adi marada dawooyinkii iyo dejintii iyo adi nooc laakiin xanuunku meeshu ka soo gaaray lama ogaan ayaga ma ogaanin dhaqaatiirtaas ma ogaanin maxaad u sheegaysaa maxaad sheegaa mar kastaba waxaan ba ahan ku dhahay qof wax saarsan anigu waxaan ba ahay qof wax qarinayo dhibaatadaas uu la kulmaa ilaan maskaxda bini aadanka waxba ma hayn karto ilaa muddo laakiin qof xanuunsan oo aan xanuun kuu sheegin see loo daweyn karaa waa dhib badan tahay lamana ogaan karo aniga laakiin waxa igu kalifay waxaan aaminsanahay dadkeena iyo dhaqankeena waa qofka kaliya oo saameeyaan ahay haddii runta laga hadlayo dhaqanka kuwa soomaalida waaba la gartayba inaad ka carartay xataa dhaktar soomaaliya ba iska daa laakiin kuwa ajnabiga ahaa kuwa ajnabiga waa ku dareemi karaan xaaladaada ma dareemi karaan horta laga yaabo qofka ku daaweynaya inuu ku dareemo waxaa jirta laba gabdhood oo saaxiib la ahay mid kamid a aad iigu xanaaneyn jirtay isbitaalka haddana wadankaanay joogtaa waqtigaas ani caruurta ma dhalin oo alxamdulilah ilaahayna cudurkii waa iga dulqaaday oo waxaan qabay wax la dhaho anxiety cabsida oo saaidka xataa waxaan ka baqaa baabuurta la raaco waxaan ka baqaa inaa adigoo kale hadda ku raaco kale wixii flashback igu noqonay yani waxaan u haystaa mar walba waxaan ahay qof woori ah walwal kurbo cabsi aan loo jeedin oon adigana aada arkayn qofka kale arkayn aniga la igu siman oo igu eg aan ka qaaday habeenkaas aad iyo aad ugu xumahay maxaa markaa kadib talyaanigaad ku noolayd noloshaadii dambe mustaqbalkii ku dhisatay markaa maxaa wax u bilowday goormaad ka soo kabatay aad isleedahay dhibaatadii ku gaartay walaalkaygiioo horta noloshayda ilaa hadda haddaan kabsaday xataa aniga waxaan aaminsanahay wax yar inaan kabsaday wax badan ma kabsanin sababtoo ah ilmaha korintooda wahelay kuu tahay ma fahanti markaad caruurtaada dhasho oo korinaysid يعني لايف كلاد جليسا أو وح إلوبيسا وحي هراء بيس وح كنا قناه إن العيال كرسيت لكن وهلك كليون هيستي وحي هاين أيجا ووهشن جري ودويسن جري عبسدي إن إجا بعض يو كلام دريم جري الحمد لله وحبرشدنا ولقي واجعلا marka diintan dib u bartay fasirkeenan barto suuradaha barto wax walba barto salaad oo ku fiican alxamdulillaah rabbil caalamiin aadan oo salaad oo dukada oo ilaahay uga baqaa yaani ilaahay wuxuu ii furay inay maskaxdii qaboodo inaan kala barto dadkeennii aan background la koray barkii annaga jirkaana laga koriyaa haddaan soomaalinahay saan looma khilaafsanaadeen adduunkana saan ma ahaadeen dadkeena hadday yihiin dad dhisan sida kuwa inta ku dhalnay oo inta nursery la geeyo lasoo abaabiyo aqliga laga koriyo maskaxda laga koriyo annaga jirkaana laga koriyaa ayaan la dacdi ogtahay ku jirtid ma ogi inaana la mid tahay inaan aniga kaligay ahay kolley dad jirka laga koriyo aan nahay oo aan maskaxda laga korin markay markaa yarta hadii lagu yiraahdo xubintaada taranka waa muhiim hooyo korkaaga qof kitaabto maaragtay qalad waaye gabadhaada maaragtay dhiiga waqtiga ku dhacay waqtigaas oo kugu dhacaa la dhaho yani iyada dhan la dhiso gabadha waxaan aaminsanahay inay hadda wax soo gaaraan ay dhehayso garabkaana isoo jabay laakiin qof la tortor gareynayo hadii afka hadal uu kasoo baxaba lagu celinayaan ahayn oo war naga aamus maxaa sheegay iyo balaayo ku aragtay habaar u dheeriyo ay u dheertaho yani maskaxiyan aniga waxaan aaminsanahay sirteyda ma qarsadeen haddaan heli lahaa qof meesha ambiyantaday la kortay dad furan oo aqli furan oo maskax furan ay yihiin waa sheegi lahaa waana macnaha ka daawoobi lahaa marka guurkii mustaqbalka seed ku bilowday saygaada guursatay ma uga sheekaysay waxa ku soo dhacay hadda ayaan loo taas inaan kuu sheegaaba qurux badan hadda ninkaas horta dadkan ilmaha u dhalay dad magac leh oo la wada yaqaan waa alxamdulilah soomaalida ka soocan wax aan uga sheekeeyay ma leh youtube anoo ka hadlo arrinkan ka sheekeeyo dib u soo maqlay waa guurkayga kore horta 3 guuraan maraa kii saddexaadaan hadda ku jira laba waa kala tagnay single mother aan caruurta ku soo korsaday kali aan ninkayga uma sheegin ninkii iigu horeeyane ilaan awal waxaan ka cararay ma ogeed inaan dhahay macnaha guurkaas ma ogeed laakiin tan markaan dhulmar noqday oon dalmar noqday qof maaragtay adduunyo taqaano wax walba la kulanta yani nolol kasta aragtay markaan guursanayay kama baqin inaan iraaho
dhibkaana igu soo dhacay yacni ninkaan ma i rabtaa ma ku cajibiyey aan isguursano ay ku imaatay guurkeeni ma uga sheekaysa dhibka ku gaaray maya ma dhihin waa la isoo kufsaday never ma dhihin laakiin waxaan u sheegay inaan guur soo maro oo kale nolosheedii aan ahay qof hore usoo guursaday ha dhacdo hadduu dib u maqlay markaan dambe laakiin maxaad uga qarisay runta qofkaad nolosha la wadaagaysid wallaahi nolol wadaagaba ma aaminsan soo ma dhici lahayn inuu garabkaaga istaago oo ku kaalmeeyo wallaahi nin Soomaaliyeed mise ma oga hadaa ajnabi guursan lahaa aniga waxaa aaminsanahay ninka Soomaaliga markaan guursanayo qadar inay ku timid oo anigaba aan u joogin inaan nin Soomaali guursado aniga ahaanteydan kaala hadlaa maxaas u leedahay wax way timid un ilaaha qadaro inaan awlaadan dheer dhalo ilaahay agtiisa ka ahaatay laakiin reedi uma ahayn nin Soomaali inaan guursado nin Soomaali inaan raaca ma rabin waxaan diyaar u ahaa nin ajnabi ah inaan guursado isagana xataa aniga oo diyaarsanaabo laakiin ay ku dhacday inaan guursado nin Soomaali min Allah markii anaga dhan waxaan nahay dad qadar ku socda asaga marba hadaad noloshaada ku aaminayso qisada noloshaada inaad ku aamini weyso waxaa keenay maba isla sii cabsi adiga kugu jirto waa weligeeba cabsi isaga ma xumaan isaga aniga waxba xumaan iguma sameyn cabsi adiga kugu jirto waa aniga uqdadaas maalintii dhibka i gaaray ilaa i kamaantaan qabaa oo laygu tortor gareeya macnaha markaa hadda walaalkay kula wadaagay waxaa iga keenay ilaa haddaan ugu jiraa maaragtay xabsi waxaa kamid ah dadkayga xaggiisa xabsi ugu jiraa kow markaa naqday gabar fatiika ah oo cararto qof isweydiisa ma leh maxaa ku dhacay gabadhan ya wax ma gaareen ma leys dhihin wax iga daaweeyey ayaan le ma leh kow anoo balaag liista xagga kaga jiray أنا إسأوجها إن قف وناكسن أهي قف قلبي في عنها أهي قف ومد ونحريسة أهي قف دنتي هذا تقانا أهي أيان له هدنا دت كيان تورتر وجرها مركان صوبا بم بعدهم بنانك كياننا وحبل يري سبحان الله عمري أنا كجرتها واي يا واي أتوحن أو شكيني أدو دعدانا بل عندنا الجواب تستاسن كاربا يعني صافي dhibka nimankuu geystay ma wada taqaanid nin ka mid ah taqaana hal mid ah aqaana inta kalena isaga sitay ma ka fakartay waliga nimankaas ubadka ay dhaleen in ubadka guursadaan waxaan ka hurdi waay nolosheeda ku soo noqday inay xataa daris leeyihiin dad badan ah hadda liis igu qoran oo aan isleeyahay suspect ko labo aan isleeyahay baraa bulshada ileen ku jira mugta dada aniga aan inay ilmihiin isguursadaan aad ka cararaysaa mustaqbalka inay ogaadaan dadka inay ahaan dadka dhibka u geystay kaas maya ilmahayga inay wax ogaadaan kama baqsanin markii ilmahayga waa ilmo ku dhashay Yurub oo noloshaana maaragtay waxna bartay oo ma aha ilmo maanta oo aan dhahay u baqaayo waa ilmo isku filan iyaga saad ugu sheegaysaa inay dadka noocaas iska ilaaliyaan ayaga markasto saaxiibaan la harto gabdhahayga aadan saaxiib u nahay aadan isugu dhownahay aadan isu jecelnahay markii waxaan ka sameystay jecel kala ma haysto ما فهمتي نولشي وحا آمني إنان جعل كو قضي إنان وحوالبو رحمة ونحريس ودن أنكو سو قضي لكن أن هستو هل جعل كاسو أيغا ليه مركا أيغا مركستو كمشاكي قبو ويلكيغا الله دورو مجلي بديدو مارت waxaan maanta dhan qoraayo waxaan qoraa sheeko labaadan soo wadaa tan aniga ma qorin waxaan rabaa inaan ka cudur daarato maadaama aku ku bilowday inaad tiri inaan qoray qisada anay qusaysaa maadaama aanan practice u ahayn qorista oo aan af Soomaaligana aad qani uga ahayn gabar dayax la yiraaho dayax Axmed Ilay oo barnaamijkan ku sheegayay oo kamid ah waxayna ay hal dooray waxay ka tahay iyada mas'uulka ah muqdisho degan gabadhaasan u dhiibay gabadhaasana maaragtay qortay waana uga mahad celinaa dayaxmasantahay waa qoraalka runtii qoraal fiican karaama leh waay qoraal fiican oo aad iyo aad loo fahmi karay qortay waay marka waxaad ii waday warwarka aad ka qabto mustaqbalka dadkaas ubadkaaga iyo ubadkii kale ayaga dadkaas inay isguursadaan inayna soo dhex galaan waa waxaan u raadinaya in ninkaas la ii qabto ninkaas oo afkiisa ka sheego raggan ilan wixii dhinta waa dhinteen Allah u naxariisto intii nool oo sida hadda anaga u noolnahay u nool inay maaragtay joogan inuu sheego waay
saafi markaa dhibka ku gaaray inaad sheegto ayaa kaaga xanuun badnaa soo maahan dhibka ku gaaray laftiisa inaan sheego aba xanuun igu ahayd waqtiga igu dhacay sheegista waa waxaan la sasay dhahaan Soomaalida qofka markuu inta shoogo saso wax kala garan waayo waxaan la sasay yaan lagu ogaan yaan lagu maqal yaan dusha lagaaga qorin waa gabadhii la kufsaday barkee waxaan ogahay ayaan loo gabadha haday xun tahay xataa ama dariiq xun ku dhacdo dhalinyarada xaafadda ayagaaba rukumanayaba oo yacni saf u soo galaya hadii xataa waa la xooga maxad sugi 10 deriska kula ah aba adiga kugu soo naftaadiya baylaha mar hadii Soomaali dhexdeeda lagu yiraa qofkaas waa qof la soo kufsaday dadka noocaas dhaqankaas lahaana Madiina haysana marka diinteena marka aad koraysa marka xamar dhalinyarada kufsiga iyo tacadiga gabdhaha u geysato waxay hayaan dhalinyarada kibirsan oo ay madaxda daleen aadi ninkan hadda nin madax dhashay ma ahayn laakiin familkooda xoogaa waa u ekaa barkee dhaqaale yar haduu xataa uu haysto kuwa madaxdu iskarab dhiga madaxda kufsan jirto waa la wada ogyahay gabdhii wiilasha kufsaday magacidoodii inaa xasuusataa u maleynaa ina Careys Ciise Kaasha safkii kufsaday iyo groupkan waa ayagii marka groupka say u abaabulayeen dhalinyaradan dad tooriin wata ma ahaayeen maya gabadhan ku dhaxay intay xaafadda iigu timid dhehaysa saasay ku dhaheen oo naagti waa soo baabi'inee adna waa ku yeelina dhehayso afkeeda waxay tiri jingo ma taa la dhihi jiray mataqaanid يعني laga dhihi adaha asas la isku dhihi jiray tiri ayaga magaca oo watay marka jingo ma ayaga ahaayeen jingo maatadi inay koox kala ahaayeen anigu ma ogi mogt laakiin iyada marka sheekada waxay isfasiraysaa inay nimanku shan ahaayeen taas aysan lix ahayn ma in shan iyo lix iyo tobanba igu tir balaayaa ka dhacda meesha shan wada socon jiray ahaayeen markii qisadii aad ka sheekeynaysa baabuurka aniga waxaan shana ay sawirnayd barkee sababtoo buu meesha moqtaa hal qof kuma xoogi karo horta maanta haduu nin inta ku dafo si kasto aad ula xarbido hal nin waxba kaama goyn karo laakiin markay noqoto in mid dhinac ka jeexo ku kale inta ka jeexo mid ku lagdo mid qoorta ka qabto mid timaha ka rifo mid jilbaha kugu dhufto waa type-ki aniga la igu sameeyaan ku sawirooya jingo maato marka shantii waa ay igu dhahdaan ku dhahay marka kullayba shantaasay marka ahaayeen ama shan ama lix balaayaha artaa group oo ninkan nin group watu ahaa welina waxaan la yaabay ehel moona lahayn walaal moona qabin wax ka naxmoona qabin ilaan anigu publican ka sheegay mugta way looga damqa waaye way loo soo qabo waaye way leegula garab gali waaye ma weli ayaa aniga yani aan daanadii Soomaali ii geysatay weli ku jira saafi marka maxaad isleedahay waa ku dawoobaysaa dhibka ku gaaray waagaasna hadii aad cadaalad raadin lahayd kullayba ma aad raadin oo maxkamad iyo booliis aad tagi lahayd wadanka dawladdu waa ka jirtay dawladda jirto wax walba jirto haba cadaaladdu intay doontaa la ekaato maanta cadaalad ma jirto waxaana soo maqlaan ku sheega intaan noolaay oo dhibka aan tabanay bugaaga akhrinay dadan sheekadooda maqlaay waxa daawada i daaweeyay way muqtay yani in dhibka i gaaray ee gabdha qaas i sheegteen aan jiro oo aysan rabin inay ka hadlaan waxay ka mid tahay daawadeeda oo aan ayagana dhinac ka daaweynayo kulligeen aan nahay dad banayaala oo sheekaysan in codkooda la maqlo u baahan way badan yihiin qaar familal markaad ka sheekayso qisadaada kullayba hadda way yartahay dadka la wadaagto maxaad dareentaa caafimaad ma nafistaa waa nafisaa laakiin midaana ku nafisaynaa jirto ninkaas waxaan la ahay wax ii heeliyo markaan yarayna leeyma heelin aan taagana anoo weynna leeyma heelin qof weli heela raadinaysa maar ad qof wax ka haleey wax tartaa inaad inta uga dhigto oo afka gashato oo maaragtay dhulka la gasho mogta markaa weyse ka waran wax kaaga heelayo taas ciqaab kale waa oo anaga aan ahaan dadkeena ku ciqaabana maanta maxaad ku dawoobi lahayd ninkaas oo la soo qabto inay kelmadeeda run tahay xalaal tahay ilaahay ila og yahay inay dadku ila ogaadaan
markee dadaa weli laga yaabaa inay maaragtay ii haystaan qof aan run sheegin taasa i ciisha ka mida xataa dadka aan ka dhashay maxay ilaa hadda ku aamini laayeen bay kula tahay dadkaagi anigaa baxsad la igu qiyaasta soo ma anaaba xun yani laakiin ilaa hadda inay ku aamini waayaan horta hal gabar ilaaha dhaafo waxay tiri waa ku xanuunsaday markaa maqlay oo walaashay waa kula xanuunsaday markii waxaan dib u sawirtay tiri caradii badneyd qof waxaan ku soo baxay yani caradaadii aan soo xasuustay waxaa ii sawirmatay dhibaatadaadii qof dhib qaba ay marka ayaan loo dadka qoftaas kaliya dib hadda ku dareentay waaga dib u dareentay walaashay way aabahay hooyadeena maba u sheegino waaba iska waayeel dad iska xanuunsano waayeel waa maanta waxba ma qaban karaa laakiin anaaba maanta hooyo aabe maho sidai ayaga waalid u yihiin anaa maanta waalid ciilkaygana waa un marka laygaga hiilin waay xataa soomaali cid kasto ayaan ninkii way hor socdaa waa heestaa waa joogaa waa daawataa mar walba waad aragtaa markaan arkay aan aniga kow arkay inuu heesaay ma heesi jirin soomaaliya maho markaan arkay inuu nin heesaya waa markaan ilaahay iga kor qaaday culeyskii oon ku fikiray isaga wax horow ku nool yahay maxaa xabsiga kaliga ku geliyay ilaahay igu soo celiyay inaan kala jecleen ceeb waxaan u hadlaya public ugu sheegaya inaan yani tuso marka waa heesaa xagga ku nool yahay ku heesaa marka Canada ku nool yahay boo waa fanaan dadku daawadaan waxaan ka yaaba xataa fanaaniinta madam qadaan miya mise ayaga dhanaaba dad wada xun waay qof xataa ka dhiidhiyo lagama helin dhexdooda oo ka jawaaba ayaan oo u taga oo yiraa gabadhan waa kugu dhagantahay iska soo fuji ileen ilaahay waa ila ogyahay ayaan nolosheeda bari qaateen aboo maxaad ku dawoobaysaa marka halka aad isleedahay waa ku dawoobaysaa haddii ninkaas maanta aan cadaalad lagu keenin waad arkayso inaad wadankii Soomaaliya cadaalad ka jirin kuwii kalaaba ku hareer nool maya horta wadankan ma isku daydo marka inaad raadsato waxaan rabaa hal mid ina maanta ogaatid gabadhii uu saaxiibka la ahaa ayaan gabaraan qaraabanahay teleefon u dirtay waxay ku tiri qof weynaad tahay maanta Zahri adina isku eejatihiin ama waaba ka weyntaa NGO way u shaqaysaa afgooyay ka shaqaysaa waa la wada yaqaanaa ilaahay ka baqay ku tiriye arrinkan waxaad ka ogtahay gabadha walaasheena sheeg waxay tiri Canada uu teleefon igaga soo diray wuxuuna igu dhahay waan ceebaysanahay soo istaag telefishinkee ku beenay naagtaan warkay sheegayso ninka nool ee weli sii difaacaya teleefano dirsanaya ee weli raba in aniga laygu beenayo wax iiga danaaninayo ma la wuxuu leeyahay marka gabadhan beenee aniga soo ma sheegin YouTube-kan ka hadlay farxiyo cabsiyaan u sheegay hadda ka hor markaas waa markuu dhahay beenee iyadana waxay tiri ilaahan ka baqaaya qof weynaan ahay gabadhaas waxba kuma beenaynaayay gabar kaloona ka sheeganaysaana arkay tiri marka taasa proof ku filan ayaan loo gabadhaas leeyda raadiyay marka gabadhaas marqaati ku ah iyada aniga maxay ka ogeyd qisada may qisada maxay ka ogeyd aniga maxaan is dhihi karaa ninka saaxiib kula markuu dhibaato gaarsiin maxaan ku fikiraa adaab igu soo diraan ku fikiraa aniga heerkaasan ka aaminsanahay iyada laakiin waa bini aadan oo inaan igu soo dirinaa dhici karto isaga uu si qaas ii raadsanayo laakiin iyada iskiin bartay madaxeedan ku bartay oo xaafadda waa asxaabtu waxa waa mogtahay ma aha Soomaaliya waa leesla wada koray hal xaafada la wada degan yahay waa leesu tagaa waa leesla shaaxaba waa leesla soconaa waa la kala tagaa dad waxaan ahayn isdhex gala way kulanka marka habeenkaas meeqa kulan aad kaga horeysay ninkan aad hore isku aragteen aragti koraleen arki jiray ma la kulmi jirin aniga korkaas inaan gabadha geedkeeda ku arko soo la taagan arko ma aha wax oo aniga on gooni u raadsanay laakiin isaga aqoon waji kaaga muuqatay iyo hadalladii dhex maray iyo wax oo hadda xanaaqi waxba ma xasuusto waxbana uska magaas leedahay waa imaageen waxay igu maageen Allah waclam taas ilaaha og laakiin waxaan ku sheegaa damage-kiisa inuu tan ilaa heerkan wax yar oo talmar sameeyso ka dhalan karto dhibaatadan xoog leh aniga qusaysa oo qof aan aniga ahayn ayna ogeyn
alxamdulilah waxaan soomaali uga qarsaday ilaa hadda dulmigu waa socdaa kufsiga marka laga hadlo gabdhaha soomaalida waa wax meel walba ka dhaco hadda soomaaliya meel nabad iyo meel aan nabad ahayn ay wada qoran yihiin tacadiyadaasna inta badan waxay gaaraan gabdho nugul oo laga yaabo inaysan wiilal la dhalan laga yaabo inaysan waalidkood la noolayn maxaa ugu wacan aad leedahay arrintaa waxaa ugu wacan baylax markaad tahay way ku arkayaan wiilasha waxay leeyihin maanta haddaad tan disho wiilku feeraya berri toolo oo inta jidka kaaga hor yimaado ku dilaayo lama dhalan ma fahante marka waxay leeyihiin haddaad dishana laguma soo raacanayo ilan wax ka dambeeyo maba leh yaa ka dambeeya hadda iyadee waayeela ma inta baxday xaafadooda aadi lahayd haddaan xataa u sheego ay dhacdo maxay ka qaban kartaa keliya aabahee loo wici lahaa markaasay noqon lahayd in aabbo odayaal iyo ay sheekada gaarta mogta oo anigina markaas aniga xataa laysii cayro isla wareegta yahay habeenii maalin socodkaaga iyo shaneema-aadkaaga iyo qurunkaaga adaad doontay ilaan haddaa gurigaaga fadhida kuuma imaadeena aniga jawaabteyda ay noqon lahayd mogta marka waa xaqiiq gabadha koraysa ee aan gabadha looga cabsada lahayn waa victim waa Soomaaliya ugu dambeyn marka maxaad tala jeedin lahayd aniga taladeyda way badan tahay runtiina buugana waa ku taalaa taladeyda waxay tahay kaliya in maaragtay gabdhaha yaryarka marka dhibka gaaro inayba tootale anoo kala noqonin anigoo kala haba noqonin aan taaganahay gabdhaha inay gabdho geesiyaaloo markaas dhibka gaaro waa la isoo kufsaday ay tiraaho ninkaanaana i kufsaday waalid ha u sheegto waalid walaal kii ka hor yimaada cabsi horta meel dhig cabsi waatan aniga ilaa mental health i geysay oo maskaxiyan ii jirisay marka waalidka laftooduna ha ogaadaan inay waalidkana inay isha ku hayaan ay gabdhahooda la saaxiibaan ay gabdhaha ilaashadaan especially meel kasta intuu ka dhacaa kufsiga maaha wax anaga keligeen noo qaasa gabdhaha yaryarkaa markay iswada raacaan dhoocilaha oo dhoocilo kala raacaan midaa u shirqooli karto inta markuu ka dhacaaba ugu daran markay gabdhaha mentally hore ka noqonayaan markay beri subaxi saaxiibadeedii iskoolka uguma tegi karto sheemka oo gabdhaha dareemayaan naguma eka hataa anaka inta waa yaalaa oo gabar kasto aa sheem dareemayso markii dignitigeeda 2 ama 3 qof ay jirkeeda arkaan hal qof xataa waxaa isleedahay mogtaa qof idiima jeedo laakiin markuu kan ku arko adiga dhan maalintaasaad maaragtay waa dhimataa waa waxa aniga aan la xanuunsanahay oon ilaa hadda uga dagaalamayo rabana inaan gabdhahan u noolaado hadduu ilaahay idhaafo intaan noolahay marka olaad wadaa oo gaar ahaan buugga kuma eka inaad wacyigelinta bulshada wado oo aad dalkii tagto aad u doodo xuquuqda gabdhahaas oo aad badbaadiso gabdhaha yaryarka ah ee weli dhibaatada gaarin kulli inaa maaragtay aan dhahona sheega يعني waxa kaliya ololahayga ugu badan inayna noqonin anigoo kale oo ina jiranin markay wax kasta waxa dilo gabdhaheena haduu xataa wiil saaxiibo oo caawa ama furo ama ninkeeda xataa furo xataa waa qarine ceeb ay wax kasta u arkaan wax kasta ceeb naag la furo waxa arkaysa ku dhaysa leema furin oo u moodo xataa furiinka iska daa nin kufsade dambi ay la tahay marka dadka caadada dhaqankeena xun aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saafi Cumar ayay ahayd oo nala wadaagaysa qiso yaraanteedii ku dhacday 1986 iyadoo joogta magaaladeedii Muqdisho oo ay ku kortay halkaasna ay dhibaato u geysteen dhalinyaro abaabulan oo kufsi xad dhaaf ah gabadhaasi kula kacay sida ay noo sheegayso magaalada Muqdisho intay meel bannaan geysteen muddadaas dheer oo ay noolayd waxay ku noolayd cabsi iyo warwar ay ka qabtay mustaqbalkeeda iyo nolosheeda waxaana hadda ay ku nooshahay magaalada London oo ay degan tahay waa maamo ilaahay caruur siiyay oo ku dhaqan waddankan Ingiriiska qisada ugu weyn ay rabto buuggeeda ur ku taalo ayaad ka heli kartaan waxay aad u baahan tihiin macluumaad ay ku saabsan sheekadan ee dheeri ah laakiin Saafi waxyaabaha ay u taagan tahay waxay sheegtay inay tahay in ay rabto in la badbaadiyo gabdhaha Soomaaliyeed ee fayow hadda ee aan dhibaatadu gaarin oo ay tahay in waalidkood ay ka warqabaan way ogaadaan xaaladda gabdhoodu ku korayaan lana socdaan marka ay ka dareemaan haba yaraatee wax culaysa gabdhaha inay ku yimaadeenna ay waraystaan oo ay isku dayaan inay soo dhaweeyaan si aysan u dhicin inay noqdaan dad takooran oo wixii iyada ku dhaco kale ay dalka iyo dadkaba ka cararaan oo ay marka dambena ku dambeeyaan inay isbitaal galaan oo caafimaadkooda uu halis galo walow la sheego dad badan ama gabdho badan oo Soomaaliyeed inay naftooda gooyeen oo ay isdileen markii kufsi loo geystay kadib
guud ahaan barnaamijkana inta ayuu ku dhan yahay aad baan idinkaga mahad celinayaa intiina daawatay hadduu allah awood leh ogolaado waxay noo balana marar kale hadduu alla idmo inta ka horeysan waxaad leenahay nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saafi aadan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga mahadsan walaalkay oo maanta isoo siyaartay ilaahayna waxaan kaaga rajaynaa inuu caafimaad kugu bedelo dhibkii ku gaaray aamiin qof kastoo dad dulmiyana in cadaaladdu maalin soo qaban doonto insha allah saasaan rajaynaynaa in waddankeeni uu noqdo waddan caadila si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid